إلهي أمركيس هدان دارود نهي عيب بانو دحجوبنا عيب تاسنا وحانو كيني رئيس الوزراء هني وحانو دمان رئيس الوزراء هو اللي قرسدي إن اللي يراهدو أيا نو دمان حكومة دي صوماليا والله صفتي قبر اللي يراهدو ملابو كلا صفتي قبر اللي يراهدو رمل قروح ونين اسكو هيستي أيا حكومة دي دحصب بينيسا رئيس الوزراء لما يعني أقدر سنة شقة قرنك إنه كشقيو عدكي دارو لها هالكا صوت ديغو قبر أبقى يا قبر مريحانا ونين كدقالمي قال قلعة أيو كلا صفتي رئيس الوزراء قبر دي أبقى أولي هي ورصحافات بصوصة رايو قبر دي ملباء هايد وكاشر يصير رئيس الوزراء شقة كالوريكتي أيا waxay shaqadii ka ceyrisay iyadoo beejkii ra'iisul wasaaraha adeegsanayso shaabadii adeegsanayso xafiiskii dhex fadhida ayay shaqadii ka ceyrisay nin la yiraahdo cige ayay shaqadii ka ceyrisay waxay uga ceyrisay inuu ramle qurux ka aaday intaasay uga ceyrisay shaqada ra'iisul wasaarihiina arrintaa waa ku taageera marka waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraheena barakaysan xamsi ورصحافات كواكاها ينايا وصوصا عبنا ودحجونا مانت لكن وحن نكرمنا بالعض هنقص ضوبي أنا وحن كبقى يا إن رئيس وزراء أنت موقال صوت ضوبا إنه ده إن عجو هذا نقص لابن ملابو شقدم ب دولتي كمان قبريسي هذا ربطت شقدة دي ملابو قص لابو وحافظ كإمو intaas in ra'iisul wasaaruhu oo muuqaal uu soo dhaw hadda warqadan waa inkiri karnaa mog warqadan war saxaafadeedku ra'iisul wasaaraha iyagu maba soo saarin malaba soo saaratay xafiiskana malaba la wareegtay warshaalayaal soo dhawaada muuqaalkan leeg noo saara wax badan oo aan ka xishoon jiray oo aan isii jiray wardad waaweyn baa ku daawadee alla ilaahay waxaan tiktok ka socday waxaan macquulka dadkaan uma daawanayaan yaan lagu la yaabay هذا أنا واحد كحشون يي حفيز كرئيس الوزراء هي كحشون ويي وورقد دور متره صوص عريمانت إلى هي أمريكس برنامج كنا نقول لك إن شاء الله يرسل وهذا كمان ناس صور كذا على ركتان وحل يرى هذا ملابو وقبر أبجاله كمان ناس كلا هذا ركتان صور كذا رملة قروح باليرى هذا تيك توك استعماشها وقبر مريحان labadaas gabdhood nin la yiraahdo Naasir Cige oo ka shaqeyn jiray xafiiska ra'iisul wasaaraha horeyna uga shaqeyn jiray xafiiskan madaxweynaha oo la taliyo u ahaa madaxweynaha Soomaaliya kadibna xafiiska ra'iisul wasaaraha u wareegay teetalkiisa aad halka ka arki kadib sawirkaas ayaad ka dheehan kartaa teetalkiisa linkigiisa caadi xafiiska ra'iisul wasaaruhu ku jira ninkaas labadan gabdhood iyo ninka waxyaabo waxaa jira tiktok inta badan ka socda oo dadka dhalinyarada muuqaal ay kala kacsadaan qof media hadda raba inuu soo galo ayaa dhahayo noo kala kici marka waxa leeyahay jacayl aan jirin baan jilaynaa mar waa istagaalaynaa sidaas ninkan jaranjaradu ku soo fuulaya caan buu ku noqonaya sidaan anigu aaminsanahay sheekada aad baan u dabagalay ninka la yiraahdo Naasir Cige iyo labadan gabdhood wax kala dhaxeeyo oo jacayl horta ma jiro ninkan gabdhaha saaxiib buu leeyahay xafiiskana ka wada shaqeynayeen waliba asaga iyo gabadhan marka sida awgeed wuxuu yiri gabdhaha iga caawiya ay tiktok-kan raba inaan ka laandheereeye qorshahan uu la yimid gabdhuhu way ku taageereen macnana male in jacayl la iska jiro aan jirin oo qofkan lagu soo kiciyo marka horta barnaamij sidaas oo daraama ah oo ayagu ay samaysteen oo labada gabdhood iyo ninku ay wada og yihiin ayuu ahaa oo tiktok ay la yimaadeen dadka lagu wareerinayay ninkan share out baa lagu sameeyo in lagu soo kiciyo ayaa la rabaa oo tiktok soo galo marka ayaguna waa ku kala kacsanayeen marka wax sidaas ah oo tiktok ka dhex jira dad baa marka waxay sameeyeen ninkan xafiisku ka shaqeeya heblayo wixii baa la buush gareeyay waa tamba ra'iisul wasaaraheeni illa ra'iisul wasaaraheeni shaqaba ma hayo meel buu iska fadhiyaa oo
shaqadii dhammayd ee xukuumadda iyo xilkii aanu ku ogeyn ee uu daarood ku matelay waxaa kala wareegay gabar la yidhaahdo malabe iyo wiil la yidhaahdo bilaal bushaawi oo maalin walba diyaarad saaran marocco ay uga qaybgelayaan xalfad ilaahay hadduu kuusama ogol yahay waxay joogaan jabuuti waxay joogaan kenya meel walba ayagaa dowlad diyaarad bisaa u saaran yihin annagoo waftigii dowladda ah oo ka soconno xukuumaddii malaboole ma aragteen iyo bilaal bushaawi xukuumaddiiba waa qarsoonta madaxweynihii dalka waa xasan sheekh maxamuud xukuumadda dalkana waa bilaal bushaawi iyo gabar la yidhaahdo malaba oo xasan adeer u yahay oo abgaala xukuumaddiiba waa qarsoonta xag shirarka meel walba macaa beejajkii dowladda ayoo adeegsanaya iyo jimeeladii waxaa tig la saartay tiktokgii iyo beejajkiiba tig baa la saartay oo calaamadii iyadoo hay-adihii dowladda la adeegsanayo halkaasaan horta maraynaa aniga marka maalin hore inaan soo qoraan damcay oon dhaho war shaqadii ra-iisul wasaaraha malabo iyo bilaal bushaawi baa la wareegay haddana waxaan is yidhi hadda nin odayaa tahaye dad fara badan oo ra-iisul wasaaraha qabiil ku taageersan waa nin ina adeerkaya oo kursiga waa igu matelaa reernimo kuma diidani weliga waa taageerayy laakiin tayo xumo ayaan ku diidana dad badanoo marka waxaa jira qoyskiisa ah oo tayo xumadii aan fiirinayn qabiilka ay wadaagaan fiirinayo iyo dad tayo xumada fiirinayo hadda 100% dadka taageersan ogow ra-iisul wasaaraha ogaadeen maaha oo wallaahi oo bilaahi kuwa jifalla oo karbaashayo oo dadku macnaha hadda waa ilbaxeen qabiil waa laga tegay haddaad waxtar tahay waa lagu taageeraya haddaad waxtar ahayn Soomaa waa lagu mucaaraday waxaan islaa inkastoo day ogaadeen qabiil weyn oo wax badan hayo oo ilaahay du ku soo ogol yahay saddexda dawladood oo Ethiopia iyo Kenya iyo Soomaaliya xubno waaweyn ka haya oo saameyn badan ku leeyihiin oo hadda ra-iisul wasaaraha musa macno iyo miisaan badan u sii lahayn haddana qofku inuu wax tar yahay ayuu kugu metelaa oo kugu cid noqon kara aniga ninka 29 iga tirsada oo aan wax tar ka ahayn oo aan noolayn oo aan cad ka ahayn waxa iga wanaagsan macnaha mid inta ka badan iga tirsada midka labada iga tirsada ka 20 iga tirsada oo wax tar kale ayaa ii fiican oo macna leh hadda marka balin maadriyaal sidoo u aragtaan xaafis dhan oo dalka la rabay inay shaqadiisu ay ka socoto iyadoo doorasho lagu jiro siyaasado la isbursanayo in maanta xukuumadeennii iyo ra-iisul wasaaraheennii gabdho yar yar oo TikTok jooga iyo wiilal is ceyrsanayo inay maanta warqada ka soo saarayso oo ay leedahay arrintaas wax ka jira oo ay beeninayso oo waxyaabihii daraamadii TikTok ka jiray in xukuumadeennii iyo ra-iisul wasaaraheennii ay falaqaynayaan iyadoo la isbursanayo siyaasadii ay cirka marayso xaalada kan oo wadanku uu ku jiro xukuumadii la rabay inay doorashooyin shaqo walba inay wado hadda ra-iisul wasaaruhu xalfadaha iyo ayuu xarig jari jiray wuxuu sidoo kale ka qayb geli jiray kulamada bandhig carweedyada iyo bandhiga maaragtay geeska Afrika iyo waxyaabahaas ayuu ka qayb geli jiray iyo shirarka looga hadlayo xaaladaha caafimaad intaas ayuu ka qayb geli jiray intiina waxaa la wareegay in la yiraahdo bilaal bushaawi iyo gabar la yiraahdo malabo kuwaas la wareegay waa cadaysin maanta halkaas jooga marka waxaan aad oo la yaabay warqadu marka ay ka soo baxday dawladda ayaan fiirshay waxaan arkay shaabadii ra-iisul wasaaraha oo ku dhagan waan sii fiirshay page-kii ra-iisul wasaaraha xataa wuxuu sameyn karay asagoon ismagac dilin hadda gabadha istagaalayuu la kala saftay baa la leeyahay ra-iisul wasaarihi qaranka iyo xukuumaddii miisaan iyo ceeb waysa taas ceeb ahayn ceeb weyn weeye oo fawaaxisha weeye waxaa la rabay haddii ninkan uu rabo inuu shaqo ka qabto asagoo dhan buu xiri karaa oo xabsi gelin karaa xafiis kama shaqeeya iyo xagga kama shaqeeya inta xabsi keenu weliba maxkamad geyn karaa oo dhihi karaa subcadda xafiiskaygaad ku ciyaar laakiin in warqad la soo saaro hebel aniga ilama shaqeeyo inaad tirahdid iyadoo warqadihii ay ku jiraan oo AD-gii uu wato oo magacaabistiisii la hayo oo nin sidaas uu yahay maxay u taraysaa
waxaan maqli jiray ilaahay baawirka kaa qaad wuxuu samayn karay oo u fududayd dadkuna way maqli lahaa ninkii baa la xiray waxaa la oran lahaa gabdhihii baa dacweeyey hadda asagii sheer awd buu u sameeyey weliba cajiiba ra'iisul wasaarihii waa isceebeeyey magacaabistii iyo ninkaa inuu xaafiis ka tirsanaana dadku indhaha mala'a caddaymay haystaan ninkaanuna wax dhib ah uu hadda uu sameeyey oo cad oo la leeyahay dembigaas kuwaa dad dilay oo muqdisho joogo oo waxba laga qaban muxuu sameeyey hadda ninkaan gabdho yar yar uu muuqaala la duubay meeshiisaasuu wax kacsanahayey muuqaaladiisaasuu ka duwanayay maxaa macnaayo ku jira oo hadda maanta shaqadaas kama shaqeeya iyo halkaa kama shaqeey ma macnaha waxay ila tahay ra'iisul wasaaraha ayagii baa adeeganayay aniga hadda ma eedaynayo waxaa laga yaabaa inuu ra'iisul wasaaruhu xataa warkaa ka soo baxay xafiiskiisa inuusan ogeyn oo ciyaalkii xafiiska la wareegay inay isaga falaadayaan oo kombiyuutaradii ay daarteen oo beejajka haystaan wallaahi bilaahi tallaahi beejka ra'iisul wasaaraha waxaan kaga shakisanahay inay malaba gacanta ku hayso oo iyadu ay wax ku soo qorto oo saaka ay iyadu boostigan inay soo gelisay ayaan aaminsanahay sababtoo ah xukuumaddii iyo shaqadii iyo xafiiskiiba iyada la wareegtay waana nasiib darro waana arrin aad u foolxun wey waana markii ugu horreysay oo nolosha ka dhacno haddaan nahay reerkaa daarood hadda maxaan qabanaa maxaan niraana war ilaahay amarkiis shalay niman baana lahaa muqdisho boorsaad keensateen maanta heer marka waxaanu joognaa annagu aan isbursanno macnaha asxaabu jacayl iyo dadka filimaanta jilay inaan caysano meesha siyaasadda iyo daraamada ra'iisul wasaare soo adigii lahaa jannaan galahayaa jannada ma niman iyo naaga iscayrsanayo niman iyo naaga iscayrsanayo ra'iisul wasaare inaad dhex geshin miyay ahayd jannadii aad rabtay inaad siyaasadda ku geshid mise malabo inaad guursatid bay ahayd jannadu maxay tahay jannadu wajalayaal waa idin saamay muuqaalka iga sheer gareeya aragtidiinuna waa muhiim